السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد Soomaali aad iyo aad ayaan idin salaamayaa. marka hore waxaa runtii gadaashayda fadhiya sheekhaygii Shariif Tawiil oo ahaa runtii sheekhii naxwaha aan ka bartay sida idinka oo dhan intiina badan aad naxwaha iyo culumta carabiga aad uga barateen. marka aad baan runtii u salaamayaa isagoo meesha taagan inaan hadlaana runtii ardaygiisii baan ahaye sheekh iyo cudurdaar saan idin sheegay runtii anigu arday baan ahay. socodkan yare aan socsocday iyo waxa aan sheegayana waxaan u sheegayaa waxbaan baranayaa. maalin walbi meeshaan taagay iyo duruusta isoo marta iyo dhacdooyinka aan la kulmaana darsi bay ii yihiin. weliba socodkan waxaan ka helaa duruus ka qiimi badan duruusta aan jaamacadda Azhar ka baranayo. maxaa wacay waa qoraal waxa aan jaamacadaha ka akhrisanno, laakiin dhacdooyinkan dadka aynu dhex galayno la falgalayno arrimahooda aan xalinayna la wadaagayna la sheegaraynayna waa dhacdooyin dhab ah waaye, waa ardul waaqic wax yaala. laakiin buugta waxa ku qoran wax waaqica maaha. runtii waa wax hore u dhacay in la dabaqay u baahan yihiin, laakiin socodka waa dabaqaadii, waa shay practical ah. marka ii cudurdaara haddii si qolisaan ugu yimaado hadalka haddii sidii la rabay aanan u dhigin. ii cudurdaara u cudurdaara walaalkiin jahliga ugu cudurdaara, ardaynimada ugu cudurdaara. in sha allahu tacaala waxaan isku dayayaa in aan sida aan karo aan hadalka u dhigo sawaabka, ilaahayna hay waafajiyo. cafi walaalka. walaalayaal, barnaamijkan cafi walaalka waa barnaamij runtii aan u arkay inuu yahay daawo. waa barnaamij aan dhadhamiyey mirihiisa. waa barnaamij runtii ilaahay uu ku daaweeyey dad fara badan oo la bukay cudurka la yiraahdo kala taga, cudurka la yiraahdo nacaybka, cudurka la yiraahdo xasadka iyo xumida iyo nacaybka iyo qilka iyo waxyaabaha amraadul quluub. dad badan oo laabtu bugtay, walaalo badan oo ibliisku kala geeyey, waa dawo ilaahay uu ku daweeyey. waxaana ilaahay ka baryayaa barnaamijkan in ilaa inta aan ka dhimanayo sidaa uu iiga dhigo mid ummadda ay ku dawowdo. walaalayaal, barnaamijkan waxaan ugu celcelinayo, waxaan ogahay laba Soomaali ah, maadaama luqadda Soomaaliga aan ku hadlayo, laba Soomaali ah haddii aan la kulmo in midkood uu xanuunsan yahay. heerka aan taagannahay eega, waa laba Soomaali ah haddii aan la kulmo ama labadooda xanuunsan midkood oo isu xanuunsan, ama midbaa walaalihii kale u xanuunsan, kuwa nool, kuwa dhintay, kuwa dhow, kuwa dheer. waxaan ku gartay arrinka meel walbo aan ka hadlo, barnaamijka aan ka jeediyo, marka aan dhammeeyo dadku intay yimaadaan waxay leeyihiin sheekh anaad iga hadlaysi. waxaan arkay boog jirtaa in ay jirto oo uu daweynayo. barnaamijkan waxaan ku bilaabay magaalada Kampala, masjid tawxiid, ilaahay ha barakeeyo masjidka. waxaan ku xijiyey Tanzania. markii dambe ayaa waxaan gartay dad badanna ay igala soo hadleen Soomaaliya in barnaamijka looga baahan yahay dhulkii hooyo. ilaahay barisamaadkiisii ha soo celiyo, amnigiisiina ilaahay ha soo celiyo, dadkiisana kuwa wada jira Allah ka yeelo, kuwa isu cudurdaaro isu tanaasulana Allah ka yeele. laakiin su'aasha ii taagan mar walba ayaa waxay tahay dadku i weydiinayaan, sheekh waa la isdhacay, waa la isdulmay, waa la kala tegey, dad baa la cayriyey, dad baa xoolahoodii la qaatay, beerahoodii la degay, ceelashoodii la dhaansanayaa. aduguna waxaad la timid hal is cafiyo, soo xoolaheennii dayacmi mayaan.
واسيدة انتينا بدن هل كان فردي أتكو فكريسان أو وحي أماليان برنامج كان حدي ليس عفيو إن فاتح مر قفل بوحي حقي سجري إلا عفيو أماليان وحي مركي يقاضتي إن بدن شرحه سؤاشان تركيا يا ليويدي حتى وان كندا كيمد أيا ليويدي خالد ابن وليد واللي بدت لين يرى معهن أضيال عروليالا أيا يويدين سؤاشان شيخ هدان عفيو قبضنا ويلكا هدان عفيو قريجين وهايستا دولكيين وهايستا ويلكا قبضنا يديبو انتو كسري أيود ديلي حد أذقنا عفيو إلى ذا هدان عفيو صويحي هباء منثورا هل بعد يقول سي نقون ميان وحان ليهي ميا نقون ميان وانا رنتي عكس كذا ويان سؤال شلبات أنك جواب دوننا وحواي لو هذا سؤال بس أنا ربا أنا جدول تاجو ما أنت سؤال شلبات نوحواي وحي كليه الشيخ عفي وأذيك رهايه سوماها كين الظلمي ظالم كأها إنه نوي مادو أو نوي ديستو عفي وسوماها سؤال شيء نسلا سؤال شهوري هدان أقاله مركه هوري واحد أقاتا ولا ليال إلهي وحو دائما قربكودا يهي أو وحوجيا ددك مظلومين تأه سيدا حبيب كانوا صلى الله عليه وسلم دائما أقرب تاقنا مظلومين تا أو ودهي وليبا إساقو جوغا مدينة هدي قوري هدا كهور مكا ددك مظلومين تا لو قرقاري جرين haddii maanta la iigu yeero shir noocaas oo kala oo dadka madluumiinta lagu garab istaagayo waa dadaan xataa diin haysanin lagu garab istaagayo waan caawin lahaa waana tagi lahaa buu leeyahay shirka maadaama nin madluum nin dhibana ah maadaama lagu gargaarayo walaalayaal cafiska iyo sabirka quraanka inta badan lagu soo celcelinayo waa awood iyo cizi إلهي أوسي نك مظلوم كأه هأم ليننا نك مظلوم كأه إن أقرب لآن يهي أذوق هداد حوك انتهي القبيل حوك انتهي هب حوك انتهي منصب حوك انتهي بيزنس العك حوك انتهي وحد أوقاتها يعني كسر أود هذا مادي وحد أوقاتها كمظلوم كأه إن إلهي كحوجي أو كاوين أولي يرهد عفس الصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين هدي آد صبرتان الدلقادتان تاسادتك الصبر يا أخير بدن مرنا وكأوليها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أود واتنايك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أذو واحد هيستها قوري واحد هيستها جغير واحد هيستها بيزنس ير واحد هيستها قربيشن ير واحد هيستها قبيل ير إحكتير عياد هيستها لكن إيك نين صبرك يعفي يلسيي وحلا يري لمسي صبرك إلا قف إلهي وكو إرزاقي إلهي وكو حوجي وكو حوجي صبر يقف إلهي نسيب وين مالك قيامها هلك أوديجي قريها وتكتجيسا استقال لكن صبرك ولا صعنايا مالك قيامه للتجايا ولا ليال صدق سنالس دعي صدق سنالس دلمي نين مجرو ما أنت هل كان فدي أو أنا لا دلمن ويريحي وحأغير إلا إذن كدلمي وإن دلكيني هو إلهي برسمات كيسيها سوعليه وحويان إن آد كصوتين إن آد ما أنت هل كان دل جوكتاني ذيلكين قارق حوتي يدي دل فديان وظلمي واي دول كايجي هويو إن مرتاي لغاسو كعيو إن عبسي أي كوجو جرتو آدم دول كايجي هويو كلها بكرينين رسول كان صلى الله عليه وسلم وحد قرنيسان إن دول كي وكل شيء كنتن يسدح سنة إسقو جرا
أفرتن سنة دنيا دودو ديسيي سدح طبن سنة آخر دودو ديسيي ددكي دودوا حكتد وآها أيا الله بي طبن روح دالين يرى انتي اسكسو صارين أي وحي أقرشيين إني هبين لبي طبن كا هل مرقورت إني كجويان حبيبك صلى الله عليه وسلم ظلم انت لك إلهي بدو كداريه يا لو جيستي أو هالكفر عاو ما انت ميوجرا والله بيئتون كنتني سدح سنة ودن كريسي أفرتن سنة الدنيا دودي إلا أي أبحيين محمد الأمين الصادق إلا أي أبحيين أما نذا ننك عرب كإيه بحيا رير حجاز أكتي سودي جري آمن بو أها وانك كليه اللي يسكر عسية هاي طول سنة أنا آخر دودو ديسي عقيدة دودو ديسي كنتني سدح سنة isagoo cirraystay sallallahu alayhi wasallam ayaa habeenimo ma laga cayriyay dhulkiisii wuu ooynayay kama uunan tagin wuu ooynayay sallallahu alayhi wasallam waa kii ilaahay ku maaragtay tasliyay in dhulkan loo soo celin doono waynu u noqon doonaa laakiin waxaan rabnaa in aan ugu noqono waliba halkan ku joogno meel walbo aynu joogno sidoo xabiibka ugu joogay sallallahu alayhi wasallam dhulkiisa sidoo ugu joogay Madiina sidoo ugu laabtay Makka dhulkiisa hoyo in aynu ahaano maadaama layna leeyahay ku sugasho ayaa idinku sugan xabiibka sallallahu alayhi wasallam walaalayaal dibka loo geystay layna geysanin inaga laakiin haddana ku dayda layna leeyahay sallallahu alayhi wasallam كما أنا هارين يجو أنت دبا وجيستي مدينة مركو يمد كما أنا هارين ويدي بيجرين أنت صودولان بيكوسو قادن إلى أي إلجي كجبيين إلى أي إلى فوشيشي هل كادمان كاي كجحين إلى رعب الجلي أصحاب تشوكو وقال السنة إلا أي دلين هر إيهابين ولا قاعد يسمواي لكن مركو عيدا الرسالة أود وهلي أو أرسن كرايو دولكيسي سوعشن كرايو بيرتيسي عيلكيسي حوليسي حقيسي isagoo soo ceshan karaya markuu ciidamadii diyaarsaday maxaa la yiri sallallahu alayhi wasallam waa waxa maanta la idin dhahayo idinka hadalkan hadii hore isaga loo yiri maanta hadalka wuxuu ku socdaa waa idinka Soomaalida dal iyo dibad halka iga eegaysa iyo intiina fadhida ayuu hadalka u socdaa hamarna ba qalbigiinu yaanu gelin quraanka aynu akhrinayna maanta Abu Bakar Umar Uthman iyo Ali ayuu ilaahay kula hadlayaa marna ba qalbigiina ha gelinina maanta quraanka wuxuu la hadlayo ilaahay iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam wuxuu la hadlayaan waa idinka halkay fadhiyo weeyaan ugarta sida quraanka xagga kuma soo degin quraanku maantu degayaa idinku degayaa maxaa yeelay Allah dhahaya liyundira man kana hayyan quraanka daa'iman dawadan ilaahay ka soo dejiyo todobada sama ka sare wuxuu ilaahay daa'iman ku daweeyaa inta nool kuwa ridwaanullaahi calayhim wuxuu ku daweeyay waagay noolaayeen maantana iyagoo caafimaad qaba jannaad sideeday durduuranayaan لكن ما أنت إنه قرآن كإن دوينا يا معليه عفيق مركو كهد لي رسولك صلوات الله والسلام عليه سيدا الله يبي أيام مركي أو ديار قروبي وحال يري وحد أتيجي دون قوم كصور دعي سيدا أذيك اللغو دعي قوم كظلمي سيدا الليدين ظلمي قوم بيرت هذه يعال كاجي يجوري يجي دقي أو تابصدي sida xoolihiinii loo taabsaday sida maali walba halkan aad degantiin aad isugu dhacdaan isugu carootaan aad wax isaga qaadataan oo aad ugu dhibantihiin sida halka leedinku dhibayo walaalihiin oo idinku dhibayaan qoom noocaas aad u tagaysaa baa la yiri qoom waliba laayay in badan oo saxaabadaadii ah si silca u laayay waxa la yiri seefaha ifalaarahan yaryar ee aad wadataan hubkan aad wadataan waxba idin dhicin mayaan waxaan idin siiyay waxa la dhahayo waa xabiibkaaga ku salli xabiibkaaga
waxaad wadataan hub aan idinku xojiyey oo qoryaha iyo falaaraha iyo seefaha ka awood badan ayaad sidataan oo aan idin siiyey waa cafiga weeyaan qoomkaa haddaad u tagtid waxaa la yidhi facfu canhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ايك وحال يري عفي باليري ددكاس ها قبنين دبكي اي كو جيستين حمدي اي كو جيستين ها قبنين عفي باليري افكاغا كعفي وحال لو داري waxaad arki doontaa حمزة رضي الله عنه وأرضاه ninkii dilay waxaad arki doontaa gabadhii la soo baxday beerkiisa afka gelisay ruugtay si xun bay u dileen dadkii jarjaray ayaad arki doontaa adigoo cafiyey uurkaaga waxbaa ka guuxi doona ma samri doona wastaghfir lahum ilaahay siduu u daweynayo eega waxaan yiraahdaa mar walba qur'aankeenan sunnada iyo kitaabka aayadiisa ina wada daweyn karaysa idaylkeen xadiiskiisa ina daweyn karaya idaylkeen waxaa la yidhi afka ka cafi uurkaaga haddii wax ay ku haraanna wastaghfir lahum maxaa yeelay waxaa la rabaa markaad cafisid kii ku dhacay xoolahaagii qaatay kii gabadhaada xoogay markaad cafisid in aad ugu dartid weliba ilaahow kii gabadhayda xoogay ee haddana dilay ee haddana jarjaray ilaahow waan cafiyey adiguna u dembi dhaaf inaad dhahdida laga rabaa midinka helayaa daawadaa waa idinku adag tahay inaad qaadataan soma laakiin waa daawo asal ah dadkii hore wax daweeyey waa dawada ina dhex taale ina daweyn la dawadan ina daweyn la ayaa iyaga daweysay say u daweysay waxay u qaateen biyo la yiraahdo waxay ku cabeen samicnaa wa atacnaa waan maqalay ilaahayo warkaaga waana ateecnay laakiin kuwa kala jiran kaarqabayaal ahaa oo la deganaa oo la joogay oo daawadii ay halkaa u mari weyday oo dhahayay samicnaa wa casaynaa xaalkeena maxaa sidaa ka yeelay ilaahay baad ku dhaariyey war waynu buknaa gabar walbaa way xanuunsan tahay wiil walbaa wuu xanuunsan yahay war dawadan aynu qaadanno cimrigeennii waa tegey in badan waynu soo qaadanay murug iyo walwal iyo ayaan ku soo qaadanay tiiraanyo iyo xasad farxad la'aan baanu ku soo qaadanay adduunka waa laba beri si farxad aan ugu noolaano ayuu dawadan ilaahay noogu keenay war aan u noolaano sidii salafkeenu u noolaayeen waxa la yiri cafi ayaa la yiri markaad adigu cafisid haddana ilaahow dembigooda dhaaf wallaahi wuu yiri laa tathriiba calaykum alyawm yaghfiru allahu lakum waa ku dhahayo idhabuu fa antum tulaqaa cafi baad iga tihiin buu yiri idaylkood ma maqasheen muxamed salawaatullahi wasalaamu calayh oo aarsaday ma maqasheen weligin aarsigu waa cudur kale waa silsilad soconaysa cudurkan bay sii kordhinaysaa marka maanta aad adigu markaad aad lagu dhaco lagu dulmo ood adiguna dulmkii samaysid ilaahay baa ku dhaariyay maxaad ku kala duwan tihiin xataa eeg ilaahay wuxuu noo ogolaaday in aan aarsanno in la eg intii laynoo geystay soo maaha waa in caaqabtum maxaa la yidhi facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bihi dheg haddii lagaa gooyo dhegtaasaad gooyin kartaa midig haddii la gooyo bidix ma gooyin kartid far haddii lagaa gooyo sul ma gooyin kartid waa lagu ogolaaday laakiin haddana ilaahay markaa wuxuu yeelayaa nafsadaada bal inay yara dheregto inaad yara qanacdid maadaama hawo adduunyo ibliis balaayo ay inala xiriiraan soo ma laakiin wuxuu noo sheegay asiga wax ka fiican wuxuu yidhi wala in sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin in aadan aarsanin oo aad cafisid walaasha kii ku dhacday ku dulumtay warka bentaa kaa sheegtay ku ceebaysay wiilkii xoolahaaga dhacay ku meersaday inta badiye ka keentay dukaan u dhiibtay xoolahaagii afka marsaday yaa
كحوالد كالح صدي كان ما أركتاي عاد نولشك وديدا إن آد عافيسان وصبرتان أيا إذن كجا خير بدن إن آد أرستان وصو طبيبك إله طبيبك وركيس صو سدا ما صو إسقى قرنا العذر كوحنا داوينيا محين أصبر لنا أدل قاضا لنا هي حبيبك صلوات الله وسلامه عليه حول بدن بالله دعي بل مدينة دن أو مكان يراهذا مقالة دن أو مكان يراهذا بركيسا شرف كيدي الله زيادية أيا الله أف مرصدي وحتى لو دي إنه عمريسته سو قرن مسان صلح الحديبية وحال يري حوليسي مد يعمن بل عفيقي وحوكوها لي فلا راح يسافا وتمحي وقبن لهاين ولا لهم بيدلي لهاين ديك بيدادين لهاين صوماها لكن عفيقي صبرك وحوكوها لي إن أمدي يردن قلبي ودي كسبضو دولكيسي إن لو سعليو بقذنتي إن أفوغيو إن جعيل يفرحات إن أكو عمي مؤونك أردن إلا قيام الساعة ورمياني أهين سو سيدا ماها محين وعفين لأنا هاي مركة أبا بكر مركة هورتو انتان أبا بكر وقود بين وحالا يري مركة عفيسي دنبي داف اوي ديبا ليري حدا نددكا وادواء هذاك واي وادواء اينا انتين بدن يهلي كرين محاسا الله دهيا كي حولهاagii aad ka aadan u tagi karin ka ku gadgadoomaya kan degan kan ceelkaaga dhaansanaya ee cafi lagu leeyahay xoolaha in uu aysan ka dayacmaynin waxa walaahay kuma dulmayo adoomadaydiyo dulmiga waan iska xarimay dhexdiina xaraan baa ka yeelay idinku is dulmina anigu idin dulmi mayeen sidee xoolahaaga ilaahay uu dulmaya oo uu ku dhahayaa wax walba laga qaatay faraha ka qaat si uu ku dhahayaa soo ku qalqaalinaya maya ee wuxuu rabaa afiga iyo sabirka inaad ku heshid xoolahaagii oo buuran oo wanaagsan iyo wax ka badan inaad heshid buu doonayaa ilaahay subxaanahu laba qisana waan idin sheegi doonaa insha Allah taala waxa la yiri markaad cafisid oo uurkana dambi dhaaf ilaahay intaad u weydiisid uurkaaga ilaahay uu xalo oo uu nadiifiyo maxaa dhacaya cafiski doorkiisi waa maxay fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun كأنه ولي حميم أو عدوي أو ظالمك أو كاد كبقيسي وحول هاي ادفع بالتي هي أحسن سيدة حبيبك الله صلوات الله وسلامه عليه ادفع حمان هدي لغو جيست هدي هاو جيسن هدي لغو جويا هجوينين هدي لغو عايو هعاين مؤمن بات هاي قيمي بدن waxaa laga rabaa waxa lagu geystay samaani xumaan wax ka wanaagsan billati hiya ahsan inaad geysid baa laga rabaa maxaa dhalanaya sabillati hiya ahsan loo geynaya waxa loo geynaya waa inaad cafisa waa inaad u duceysaa ilaahay dambi dhaaf u weydiisaa maxaa dhacaya marka dawada say u affect garaynaysaa fa idha alladhi lamadihin ثم الذي لمدهن فإذا الذي الترتيب والتعقيب فهذا حي فائدين يسا هدي أفكك لي آدم كعفين أفكاك أوركاك كعفيس إلهي نهبي صدح أنت سو كعدد كي كدل مي كدعي آد إلهي أبردد أو أدهد إله وعفي دنبيقي سراف والله إنا نسو داهين داودنا ويدوينيسا أذيك كليا ما هي ظالمك ولالك هاي كدعي دوينيسا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كي عذوك كوأها كدعي كي أوركاك حميي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وبجعل سكيه صاحب ونكسن يا أو كي أدون كوجو وأيون قنايا ما كدقي وحكدقي واتقارن إنسانه والصبر يعفي إيو دعادي أدعي سوي ورهلا ينجهل ومدن هوري والله داودن وإيمان إساء رسولك وحالي صلى الله عليه وسلم مركاد عفسد دم يداف ويديسد كذب أو أصحاب نقطان أوركينا ويسوفيو باذو محا إيمانية وضع هدلا وشاورهم في الأمر مركز أرنك كلا هدل محان قبلنا هل فريستو
guddi hal la saaro sida xoolihii loo kala haystay hal sidii la isugu celin lahaa sidii maaragtay gacmuhu isu dhaafi lahaayeen markaas laga shaqeeyo goormuu imanaya wada hadalka goormuu imanaya waa marka la iscafiyo oo dambi dhaaf la isu weydiiyo qulubtii ilaahay uu isu sufeeyo iyadoo la isu qoslay ayaa la yiri hal la wada hadlo Soomaha war nidaamka ilaahay una bari waa kan dad isu caraysan cadow isu ah shayaadiin ayaa la leeyahay ha heshiyaan inta la isu keeno see la isugu heshinaya see loo wada hadlaya ma cadow baad la hadlaysaa maxaa la kala gaarayaa isheega waxba lama kala gaarayo marka walaalayaal waxa la doonayo waxa waaye marka aad cafisid ee dambi dhaaf aad u weydiisid walaalka walaasha kadib ayaa wada hadalku imanaya xoolahaagiina markaas ay imanayaan qisayar oo suldaan buube qoladan begadiga ay dhahan anoo jooga Niagara Falls Canada 2 bilood ka hor ayaa sidan anoo u sheekaynaya barnaamijkii dawada ahaa ayaa waxa odagu wuxuu yiri qisayar baan kuugu darayaa waa dal ii dibad suldaankoodii waa suldaanka begadiga waan laga yaabaa dad uu suldaan u yahay inuu halkaan noo joogo Allah noo dhowro wuxuu yiri suldaan xoog leh oo qabiil sare ka dhashay rag fara badan halyeeyo ah geesiyaal ah ayaa gabadhiisa waxa guursaday nin kale oo qabiil yar oo dadkiisu yar yihiin ka dhashay ayuu gabadhiisa siiyay waxa la qabaa waa gabadhan la soco waxa la qabaa waa suldaanka xoogga leh qabiilkan faraha badan halyeeyadan gabadhaas ayaa waxa guursaday ninka kale ee iska yar 5 cunug bay u dhalaysaa 5tii cunug kadib de iblis waa taqaanaan ilkaha iyo carabka isqooma iblis baa dhexgalay ninkii uu xanaaqay intuu qaatay buu gabadhii dooxay gabadhii wuu dilay sida gabadhaada loo dilay sida wiilkaaga loo dilay waliba uu u dilay qof aad ka xoog badan tahay adiga waa la dooxay waagii baa ku bariyay gabadhii waa geeriyootay see loogu tagaa reerkii odagii waxa u sawirmay reerkii geesiyaalka ahaa wiilashii ilkaha cadcada waran leeydii yaa u tagi karaaya see reerkii loogu sheegaa see loo sabeen xiraa cid walba gacmihii ka taagatay uma tagi karna waay dambiga adaa galay geedihii baa la fuulay godadkii baa la galay waa la kala cararay mar allaala markii la kala tagay reerkii waa la sugay ilaa warkiina waa la geeyay ibliis intuu wax samee ku dhaa ayuu haddana warka ka hormarnaya soo ma ogid waa shaydaan mar allaala markii meeshii la tagay odagii horta waa loo imaan waay wiilashii waxay dhaheen waa inaan tuulada soo baabi'inaa suldaankii wuxuu yiri warkan idin ma yaala maanta anuu ii yaala gabadhayda la dilay habeenkii wax uu yimaad male subaxii bay soo kalaheen wiilashii haddana wax uu imanaya male warniyo nafasax aan tuulada soo baabi'inee warkaas idin ma yaala ayuu yiri muxuu sameeyay wuxuu sameeyay islaantii intuu u yeeru yiri gabadhii ka yareed gabadha la dilay soo sharax gabadhii baa cilaan loo soo mariyay dahab loo soo xiray laba oday intuu u dhiibay ayuu u diray tuuladii waa baqaya wuxuu yiri gee gabadhan u gee ninkii walaashii dilay u gee labadii oday way geeyeen dadkii waa yaabeen war maxaa dhacay ilaa duulaan bay sugayeen way baqayeen mar allaala markii loo keenay gabadhii oo ay arkeen ninkii uu iska ooyay buum buu yeeriyay tuuladii oo dhan baa isu timid war maxaan sameynaa waa ceebownay odaygii waa naga raay gabadhii kale uu noo keenay haddana ma yeeli lahayd adigu eeg marka wuxuu sameeyey waxaa la yiri kii noogu caqli badnaa aaway odaygii baa loo yaray maxaan sameynaa wuxuu yiri waxaad soo ururisaan 200 oo neef oo geela sabirka waa awood markaan idin leeyahay cafiga waa kan waxaa la yiri 200 konton waa gabadhii diyadeeda odayaalkii buu la dardaarmaya kontonna waa sabeen xirkii maadaama aanan cudur daaranin oo aan cabsanay 100ka kalena waa gabadhan cusub ee aad noo keentay yarteedii waxaa tuuladii ku laabtay labadii oday iyo dhalinyaro kale oo 200 neef oo geela wada odaygii iyo dhalinyaradiina waa diyaar ugu dhalinyaradu waa la celcelinaya 200 marka loo keenay wiilashii warmihii dhigeen war maxaa dhacay waa kana xoolihii odaygii wuxuu fiiriyay dhalinyaradii ka waramuu yiri haddaan taladiina qaadan lahaa arsan lahayn
oo aan idin fasixi lahaa maxaa dhici lahaa waxa ugu yar ee dhici lahaa ilmaha rajayda ah ee hooyadood la dilay baad haddana agoomo ka dhigi lahaydeen oo aabahood dili lahaydeen soo maaha laakiin eeg maanta hooyadood hooyo kalean u geeyey oo habaryar ah aabbahood waan u badbaadiyey tuulada oo dhan cabsidii ku jirta waan ka bixiyey jacayl ayaan wada geliyey iyo farxad xoolana waad hesheen oo waxaad ku hesheen 200 neef oo geela waa cafiskii marka cafisku waa daawo soo maaha wallaahi xoolihiina inaanu dayacmaynin shilinkiina inaanu dayacmaynin waxa idinka tagaya malaha xoolihiina iyo xoolo ka badan bal dambi dhaaf ilaahay baad ku helaysaan waxaan rabnaa walaalayaal in aan maanta halka dawadaas ku qaadano anigoo ogsoon wallahi thumma wallahi والذي نفس محمد بيده إله نفسد محمد صلى الله وسلامه عليه قعنتيس أي كجرتان كدارتي إيديلكين انتين بدن والله واد بوكتان واد نحنون سنتين ما بينبا ما هقنديك ما هدلي من عرج الرغوي على الحنون كما هدلاي بل قلبي ايات كحنون سنتين انا نوغو هريا يا قلبي كان كحنون سنه عذر لي هذا حسد يا حمان يا ورحمه يا ورحمه تشيل مرخت بيناله حسد غل نعيب كراهيه كلا تغان لحنون سنه سماها waxa maxaan rabnaa inaan midowno maanta sidaan halkan u nimid oo aan u midaysanahay ilaahay aan ugu nimid wacdiga saan u dhageysanayna halka qalbi dadka banaanka hadayna arkaan waxay leeyihiin wallahi ummadan waa midaysan tahay laakiin wa qulubuhum shatta waxaan rabnaa marka ugu dambeyntii inaan isdaweyno dawadan inayna gasho maanta inaynu wada qaadano war diyaar ma u tihiin inaan dawadan qaadano diyaar ma u tihiin dawadan inaan qaadano اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أفكان ما أنت هادهيا هدو والحرية مركا اللحيرو وحد اللي دونه قعمها سوحان ربا بلانتا ما أنت أي قادان إني كبيان وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا دوادا نبكيني صلى الله عليه وسلم كلي أمضوا دنبو كدوي يكون الدوين دون إلى قيام ساعة وما أنت الديار ما قلنا هاي سدبعة بين عانا أهين قعنتا مرخاتين وغنسا حدادا دوادا كو عنتمينين أو آدن قادن كريم وحكو لميهين عذرك وصيحن كو قلي هتاقين قعنتا قبري هاي ويلي هو قعنتا هتاقين مر بيعلس إنان كسارو ولا الكابان أهي خيرك وحبيبك كل جعل صلى الله عليه وسلم أيام كل جعل هاي إن داوونا دوننا عبد الرزاق جنرال عبد الرزاق فرنتي خير الله سي عبد الرزاق واحد وقاتا ما أنت قرب كاغا إن دد أبستي أي تاجيهين إنتن ملايين كبدن إني قرب كاغا تاجيهين وأنا خير فرنتي أظهر مرسي أو أدوش قيستي إلهي هكوكو أنفعه ميزان كاغي حسنات كان الله يلا إن ما أنت الصومالي oo waliba dadkii isdulmay walaalihii isdulmay ay isku dhex jiraan in maanta halkan daawo ay ku qaataan runtii adaa sabab u ah ka sokee war daawadan ma qaadanayna ma iscafinayna kaamirooyinka ma ku haysaan dadkan hadhow ha is arkaani wallahi gacantan ilaa qiyaam saacay jiraysaa youtube ku wixii la geliyay kama baxayo ogaada kaamirooyinka aniga ha igu qabanina iyaga ku qabta ما يسعفينينا إلهي درتي انت اعفينيس ولا ليك عنت هتاغنا لبدا يتاغن ايغو قبو ودعينا ياي داودا مانتا شيخ عبد الرشيد نو ايمانيا شريف كنو واجوغيا ولا دعينا يا إلهي درتي ما يسعفينينا وحير اي وحوين معفينينا قلبي مشو حارينا إن دمتي أو مظلم الله دمتي أو ما أنت العذاب يجري إلا إلهي مظلم هذا معفيه وحعفين كروايدين كوايدين دعان معفين إيسان عذاب كسر الله ذكر قاضو ما أنت مظلومين ظالمين تي ما أنت ودبيهين وضعفوي معفيني أنت دمتي معفيني أنت نقول معفيني كوا داري كوا دو معفيني إيدي معها إلهي هيدن عفيو إلهي هيدن عفيو الدنيا آخرة الله هيدن عفيو
gacantan midda maalinka qiyaame jannadii aad ku tagtaana allah idinka yeelo ilaa qofba shay unbuu ku tegi doonaa jannada shay dartii buu ku tegi doonaa gacantan ka dhabeeya gacantan mid jannadii idin geysa allah ka yeelo mid mustaqbalkiina dhis allah idinka yeelo wadajirkiina mid habaysa allah ka yeelo wadajirka allah noo dhowro wadajirka allah noo dhowro qalbiyada allah inoo nadiifiyo ilaahay waxaan ka bariyay cudurkan la yiraahdo naybkii kala taga allah naga saaro uurka allah noo xaaro dambigeena allah isku dhaafo dhulkaas hooyo runtii waa dhulkeeniye wuu ciilan yahay dad buu la yahay dadkii uu dhalay ee uu soo koriyay ilaahay waxaan ka bariyay kuwa u hiiliya allah naga yeelo kuwa soo celiya amnigiisa allah yeelo kuwa isku haysta siyaasadan xun ilaahay waxaan ka bariyay iyagana kuwa isu tanaasulo allah ka yeelo intiina xanuunsan allah caafiyo dad badan oo duco socodsidaa jira hadhow baa la ducayn doonaa laakiin kuwa ila soo hadlay ee sida khaaska ducada soo weydiiyey ilaahay waxaan ka baryayaa iyagana ducadooda allah siiyo ilaahay hadduu cudur yahay allah caafiyo idaylkeen waa iscafinay soo maaha ilaahay waxaan ka baryayaa adduunka ilaahay nagama saaro ilaa isagoo raali naga ah maahane haddaynu tagno jannatul firdaws inagoo wada jirno qalbiyo fiican ilaahay isugu kaageeyo maca alxabiib صلى الله عليه وسلم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته